dowladda Nageria ayaa waxa ay taageertay go'aanka dowladda Somalia ay xiriirka ugu jartay dowladda Geni oo soo dhaweyn ka cariisay Somalia u sameysay madaxweynaha Somaliland Senator Shihiyu Zani oo kamid ah aqalka sare ee dalka Nageria ayaa Geni ku eedeeyay in ay ku xadgudubtay midnimada Soomaaliya bartiisa Twitter-ka ayuu ku yiri waa qalad in Geni ama dal kamid ah galbeedka Afrika oo wax aqoonsi ah siiyo Somaliland ama xitaa gobol kale oo gooni u goosad ka ah Soomaaliya Senator Shihiyu Zani oo hadalkiisa sii wata ayaa intaasi ku daray waxa jira hal Soomaali oo aan aqoonsanahay annaga waana in aysan isbedelin waxa Soomaaliya ka socda waa iska xaalad maalin ayayna noqon doontaa taariikh Somaliland ayaa aad uga carootay talaabada ay qaaday dowladda federaalka ah waxaana ay ku eedeysay in aysan dooneynin si socoshada wada hadallada labada dhinac dowladda federaalka ah ayaa toddobaadkii la soo dhaafay ku dhawaaqday in ay xiriirka u jartay dalka ku yaala galbeedka Afrika inkastoo oo wali aysan ka falcelin dowladda Geni